inaan maanta soo booqday xarunta guddiga gob ee dhisaya wadada u dhaxaysa Hobyo iyo Gaalkacyo. Guddiga gob iyo wadadaani waxa ay soo martay iyo duruufaheeda waxa ay yihiin waxa ka sheekeeyay labadii mas'uul ee iga horeysay. laakiin anigu waxaan rabaa inaan cabiro dareenkayga iyo haddii dadka Soomaalida isku tashtaan waxa ay qabsan karaan. runtii dareenkayga dareen aad iyo aad u qiiro badan waaye. maanta markaan soo maray wadadii u dhaxaysay Hobyo iyo Gaalkacyo waliba qaybteedii ugu dhibka badneed oo mararka qaar oo aan ku safrayo muddo aad u dheer iyo dib aad u badan aan ka mari jiray in maanta saacad ama 2 saac gudahood aan si sahal ku imaado waa runtii waxay cabiraysaa ama tusaysaa juhdiga iyo dadaalka dadka mashruucan iyo shaqadan haya ay qabteen muddada dheer oo dhowrka sano ah 3 sano ay geliyeen ayayna tusaysaa. waa dareen aad u farxad badan, waa dareen aad iyo aad u wanaagsan. dadaalka ay bixiyeen iyo juhdiga ay bixiyeen iyo miro dhalka oo miro dhala ayayna tusaysaa. iska dhaaf baabuurta yaryar baabuurta waaweyn dhibka ay ka mari jireen ka sii darnayd. marka runtii gob iyo dadka howlwadeenka ay dadka mas'uuliyiinta ka u horeeyay Professor Shirwac iyo Xaaji Urur iyo Umar Salaad Cilmi intaba iyo cid walba oo gob ku abtirsatahay runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. mahadcelin ballaaran oo la soo koobi kareen ayaan u jeedinayaa. waxaa intaa weheliya arinta kale oo aad muhiim u ah waxay tahay dadka Soomaalida hadday isku tashtaan waxa ay qabsan karaan mashruucan wuxuu yahay tusaale u yahay. mashruucan sidaad maqlayseen waxa la dhagax dhigay bishii Maarso 2016 maantana meesha uu maray waa u jeednaa 120 kilomitir ayaa la soo sameeyay. hamiga iyo dadka maaragtay idadiishoodan waxa waaye inay mashruuca dhamaystiraan. lacag aad u tiro badan oo malaayiin ah ku baxday. juhdi aad u tiro badan baa ku baxay, waqti aad u tiro badan baa ku baxay. intaasna waa isku tashi dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka isku tashadeen hadday yihiin kuwada diasporada oo banaanka jiray hadday yihiin kuwada gudaha jooga isku tashteen ayay runtii ay ku timid. taas marka waxay daliil u tahay haddaan isku tashan inaan wax kasta qabsan karo, inaanan marnaba aysan sax ahayn in ajnabi uu wax noo qabtaa mar walba aan ka sugno. isku tashadkanaga haddaan xoolahanaga gadano, jeebkanaga aan maaragtay wax ka bixino, inaan wax qabsan karno ayay daliil u tahay. sidiisa wax qabsigu wuxuu ka bilowdaa himadu ka bilowdaa iyo qalbiga. in horta qalbiga ka aaminta inaad wax qabsan karto ka bilowdaa. markaad himada iyo qalbiga ka aaminta inaad wax qabsan karto waxa kale oo dhan asbaabay noqonayaan waana la helayaa. mashruucan marka mashruuc qaran waaye. waxaan rabaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo mashruucan wax ka geysan karto hadday tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya oo mas'uuliyad gaar ah oo dalka ka saaran yahay, hadday tahay dhammaan cid kasta oo Soomaaliyeed gacan ka geysato gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay ee dibadda iyo dal jooga ayagoo ku mahadsan wixii dadaal hore u bixiyeen inay waxa kale haray maanta ay israaciyaan oo bixiyaan ayaa looga baahan yahay. dabcan aniga safar gaaban baan meesha ku imid. waan idin mahadcelinayaa 100% tabarucaad waxaan bixinayaa lacag 10 kun ayaan bixinayaa insha Allah taala. tii u horeysan ma u dambaysan ma noqon doonto tii u horeysay ayay tahay. tabarucaad kale inta ka badanna waa bixin doona mustaqbalka. aad iyo aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.